wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in 9 qof oo Soomaali ah iyo 2 qof oo Kenya u dhashay oo laga musaafiriyay dalkan Mareykanka ee dayuurada ka dejisay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Falastiin Axmed Imaan ayaa dadkaasi waxa ay ahaayeen iyo sida lagu musaafiriyayba waxa ay wax ka weydiisay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington Ambassador Ahmed Ciise Cawad. kulligood waa dad la yidhi ay maxkamad goysay in waddanka laga kaxeeyo waxay isugu jiraan qolo soo dhammaysatay dembi gashay oo sanado badan xiraa ayagoon dhalashada Mareykanka qaadan la xiray markii la soo daayana maxkamad goysay in la celiyo iyo kuwo soo dhiibay oo asylum seekers qaxooti ahaa oo iyagana la diiday oo muddo raadiyay dhameeyay iyaguna dariiqii la mari jiray immigrationka marka dadka labada qole isugu jiraan waa dad ay maxkamad goysay qisaskoodii markay dhamaadeen in waddanka laga masaafuriyo labada qole isugu jiraan. marka adinka safaarad ahaan maxaad dadkan bixitaankoodii luga oo aad ku lahaydeen oo la idin soo ogeysiiyay? waxaana la soo ogeysiiyey annagu dadkan maadaama ay Soomaali yihiin markii waddanka laga celinayo waxaa loo baahdaa waraaqo ay haystaan documents ay leeyihiin waxaa loo baahdaa in loo sameeyo documents waraaqo travel maxaa la yidhahdaa go home ama ay waddankii ku aadaan marka anagu safaarad ahaan waraaqahaasaan u sameynay. inta badan Mareykanka meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ama ammaankooda aanu sugnayn dadka kumaanu celin jirin maxaa ku qanciyay Mareykanka xilligan in dhalinyaro intaas la eg uu ku celiyo dalkii iyadoo dhibaatooyinkaasi dhinaca ammaanka ah iyo nolosha ah dalka ay ka jiraan? horta iyagu ma aaminsaneen waddankii aysan annaguna ma aaminsan inaan nabadda waddankii aysan sugnayn oo dhibaato ka jirto dadku isma soo dhiibaan Mareykanka iyo meelo kale toona adduunka layskuma siiyo sharci dadka layskuma aqbalo baahi ama shaqo la'aan baa ka jirta waxaa la isku siiyaa sharciga asylumka qofku inuu noloshiisa u baqayo oo lagu dilayo ama diintiisa ama jinsiyadiisa ama midabkiisa ama fikrad siyaasadeed oo uu hayo. qaarkood waxaa sheegtay inay xabsiga ka soo baxeen oo ay dambiye soo galeen oo xabsigooda ay soo dhamaysteen. qatar ma ku noqon karaan bulshada ay u tagayaan laftirkooda? khatarta ku noqon karaan waa Soomaali marka inay khatar noqon karaan iyo inaysan noqon karinin ma aha su'aal la isweydiiyey oo maaragtay choice la iska sameeyey. Mareykanka ayay dambi ka galeen Mareykankuna waa iska celiyey waxaana lagu celinayaa meeshay dalkay u dhasheen marka hadday dambi ka galaan dalkoodii bay ugu xirayaan haddaba dadaan Mareykanka laga soo celin oo badan baa Soomaaliya dambi ka gala marka taasi ma aha qiyaasta maxaa la yidhahdaa qofka lagu celinayo. marka dadkan ma si iskooda oo iyagu ay ogol yihiin ku noqdeen mise waxaa jira dad la qasbay oo tusaale ahaan mararka qaar dadka qaar qasabka lagu celinayo askara diyaaradaha la raacada qaab see ah oo celintooda ayay ahayd markii dib loo celinayo ma aqbalaadooday ku baxeen mise jajuuba ku jira? kuwan hadda 9-ka ah sida anagu aan ka warhayno waxay ahaayeen qolyo iyagu aqbalay ogolaaday qoray qoraal dhahaya waxaan rabnaa inaanu noqono marka laakiin waxaan xogtaan hayno waxa weeye qofkii ogol iyo qofkaan ogolaynba qofkii ay maxkamad goyso in la celiyo inay Mareykanka ka go'an tahay inay celiyaan laakiin su'aashaada oo mid meesha ku jirta laga jawaabo waxa weeye qolada tan hadda 9-kan waxay ahaayeen kuwa iyagu rabay ka daalay xabsiga ay ku jireen immigration waxaan kula talinay in aan ku ogaano iyagu waxay rabaan iyagaa sameeyo ugu dambaysa laakiin cala alaqal dadka raba inay iyagu noqdaan sidaan ku ogaan karo inay noqdaan waxa weeye inay waraaq iyagu ay iskood u qoreen ay sameeyaan. qolada tan marka hadda 9-ka ahi waa dad sidaas sameeyey waxay noo soo direen qoraallo waxaanu ka helnay qoraallo ay gacantooda ku qoreen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa raalli ka nahay in la celiyo.